ugu karaamo badan oo ugu dariska ugu wanaag badan oo ugu dulqaad badan oo ugu run badan markaas waxay ku magacaabeen amiin maxamed amiin baa oran jiray nabiga inta la soo saaray salawaatu rabbi wa salaamu calayhi wa ilaahayna sifooyinkaas wanaagsan uu kulmiyay oo la mahdiyo sabarka iyo shukriga iyo cadaaladda iyo tawaaduca iyo dhowrsanaanta iyo deeqda iyo geesnimada iyo xishoodka dhammaantood ilaa gaalada iyo cadowgiisa ay u qiraan ayuu ammaanayay nabiga salawaatu rabbi wa salaamu calayhi waa la socotiin 35 sano asagoo nabigu jira salawaatu rabbi wa salaamu calayhi markii quraysh ay yiraahdeen kacbada ayaan dhisaynaa bay dhagaxa la yiraahdo xajarul aswadka oo jannada laga keenay qolow walba qabiil walba waxaan ka saarayna ayagoo doonahaya inay sharaf ku helaan iyo ammaan waa qabla bicta nabiga ka hor weeye in ay dhagaxa meesha qolo kasta ammaan ku hesho waa isku qabsadeen markii la yiraahdo ma dhig ku daata oo la isku laayay qolo sana qaadayna bay waxay yiraahdeen albaabkaas shaybat alhamdulillah qofki ka soo galo noogu horeeya ayaan xukum noo noqonaya oo noo sheegaya qolada dhagax meesha xajarul aswadka noo saaraysa markaas albaabkii ay qabsadeen baa nabiga maxamed salawaatu rabbi wa salaamu calayhi ayuu ka soo galay waana risaalada nabiga ka hor maxay ku yiraahdeen faqaalu hada al-amin bay yiraahdeen waa kii la aaminay wa asagaana ku qanacsanahay in kala xukmi hadda aqli baa ilaahay siiyay wuxuu sameeyay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu calayhi dhamaantood ay ku wada qancaan go' weyn ii keenuu yiri go'ay baa loo keenay dhulku fidiyay markii uu fidiyay asaga gacantiisa dhagax ku qaado go'ay saaray qabaa'ilkii oo dhan buu yiri qolow inaha soo dirsato markaas dhamaantood inta wada qaayay maradii meesha wada saareen ayadoo qolo kasta ma sharaftii ay raadinayeen meesha heleen ay saa wada gudbiyeen saas ku wada qanceen nabigana salawaatu rabbi wa salaamu calayhi markuu 40 sano gaaray baa ilaahay ma taqaana risaalada u dhiibay hadda mar walba ilaa dhalashadiisa ka horba ilaahay u doornaa laakiin markaas ayaa ilaahay ma taqaana makhluuqi ogeysiyay nabigana salawaatu rabbi wa salaamu calayhi xadiiska bukhariga sida Aisha ay warinayso ummul mu'miniin markii uu 40 markiias nabigu daas u jiray ayaa waxay tiri nabiga waxa la tusi jiray ru'ya saalixa ilaa 6 bilood حديث كلفتيس وحها فكان لا يرى رؤيا إلا جاء مثل فلق الصبح نبي رؤيا ما أرك جرين إلا هدو أرك سوى بري ودع جرتي معنا مرك همين كحكر رؤيا هذا سيدي هو أرك لفتي على تسجري لح بلاد بيساس أهيد مرك علماء كهذا ليان وحنا رؤيا صالحة هذه ومتقانا وحي مع نبي نمدي الله غيبي إيش يا كدي على كورن يهاي صد أفرتني لح غيب كم يدويه وهاي النبي صلوات ربي وسلام عليه الصقوا أفرتن سنة جري أيال الصوصاري لحدن يصدحنا واقول أنتي دين توحى فافينا هي لبعتن يصدح سنة لبعتن يصدح مركي لح بالواقع بيو أفرتن وحنا نقولنا يعني لح مركا رؤيا الصالح هذا وحي هذان وجزء من 46 من النبوة وغيب كم ذا لحدن أفرتن لح غيبات غيب كم ذا ونمنا كم ذا وين واتي حديث كلام النبي كره صلوات كورنا النبي بعد جي وح نبي نمدي وح كباقية رؤيا الصالح هذا كليه waxa weey nabiga samarka waxa ruuyadaas ay ma jirtay ka bacdi waxa la jecleysay cidlada inuu iska aado cidlada dadka dhan ka dhaxbaxo wuxuu aadi jiray jabal yiraahdo ma taqaan qaar balqaan god la yiraahdo ma taqaan xira oo malkii ku yaala hadda jabal nuur ba hadda caam ku yahay marka awalna maal yiraahdo maal xira la jiray marka jabal nuur hadda caam ku yahay halkaas iska aadi inta saad qaato oo khadiija xaaskiisa ka saad qaato uu meesha ku maqnaa jiray markuu ka saad ka soo dhamaadana intii kale misana inta saad qaato ayuu imaan jiray marka 6 bilood dhamaatay ayaa xaqi u yimid jibriil baa ilaahay u soo diray markaas wuxuu yiri aqri inta u yimid mid waxa aqriyo ma ahayn maana biqaarin buu yiri markaas inta qabtay oo saa u soo dumay oo soo dhajiyay markuu xanuun dareensiiyay buu sii daayay misana aqri mid waxa aqriyo ma ahayn buu yiri misana waa qabtay saddex jeer walba inta xanuun dareensiyo ilaa nabigu uu yiraahdo nafteeda ayaa u baqay uu yiri markii dambe iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram saa markuu yiri ayuu nabigu asoo markaa malga waa ka tagay asoo argagaxsan ayuu yimid khadiija wuxuu yiri soo dad buu yiri halkii bay hadii alla ku roon yahay sida carabta raankeeda wuxuu ahaa qofku markuu naxo in inta la dado ruuxbiga waxa iska baabaan halkii buu joogay markaas uu sheegay wixii dhacay halkaasaan joogay malagaas baa ii yimid asoo malag markaas uma dhihine saas waxa baa ii yimid saas uu qabtay saas uu ciqaabay aqri buu yiri markii dambe marka waxay tiri maalka leeyahdo hadda qof aqli badan ba ahayd ilaahayna lafteeda uu doortay waxay tiri kalaabay tiri markuu nafteeda u baqay waxay tiri wallahi ma yuqsi kalaaw ilaahay waxay tiri kuma hoojinahay waliga innaka la tasulu riximka ayaa xariirisa qofka tawar daran baa qaada waxa la waayaa dadka siisa martiga marti qaada dadka ahlu xaqa ayaa u gargaartaabay tiri ilaahay ku halaajimahay tiri wallahi ilaahay dib ku keeneen inta waday ma taqaana khadiija oo nabi gacanta ku dhigtay ay wax u geysay nina ilmo adeer ahaayeen
أولها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي أيضا أدير كذا بيوجيس ننكاس مركو وحو أها نن كمد أها ضدكي هرم ما تقانا وحيستي دينتي نصارى وهيستي نصارى أيوه وحو كقول الجري مركو حل الجاهلية ده وحو كقول الجري لغة عبرانية ده أو أقوام بقولها مركو قف كدو دين هرسوا هيستي بديني هر نبي ويكديان إنجيل بقى النبي قال لوجا سوشيك صلوات ربي وسلام عليه توريد بقى لوجا سوشيك واتيشوق نوشة أمانتي نبي والبو حل أرنا هي دين نبي قال هوس الرمية مركو ووجا مركا سو وحى نندأ أو إندلا خديجة وحى يتري إن أديركي ويلك إن أديركيو walaalka wiilkiisa la hadal oo nabiga markaas waalidbeegu aadanayeen dhaliyahan labadoodaba nabigu khabarkiibu u sheegay waraqa markuu u sheegay wuxuu yiri hada naamuusun kaasi waa naamuus magacyada jibriil bay kamid tahay waa naamuus bay kugu yimid waa kii wuxuu ilaahay nabi muuse ku soo dejiyay alla wuxuu yiri waa aqli badan buu ahaayeen alla wuxuu yiri shalayte marka lagu soo saaro ma dhalinyaro ahaado on markii lagu ogaaday inuu nabigu aakhir zaman uu yahay oo la soo saari doono markaas wuxuu yiri alla waa xadiis bukhari saan lafti uu qoran yahay wuxuu ilaahu shalayte alla shalayte macna inuu da yahay oo indha beelay oo uu sanabiguna hadeertan la soo saaray buu ka walwalahaya alla wuxuu yiri maxaa ugu yeelay waay wuxuu yiri ma ahaada mid nool marka dadka ku saaran qoomkaagu oo qoomka ku bixiyaan nabigu waa uu yaabay nin la jecel yahay buu ahaa amiin buu ahaa waa la tarxiibi jiray marka wuxuu yiri oo ma isaarahay aw mukhrijiyuhum isaarahayaan buu yiri nacam buu yiri qof waxa la tibid la yimaada ma jiro illa uu wala la calaatamo yiri waan la saarhayaa buu yiri wuxuu yiri laakiin hadii waqtigaagaas nabiga ilaahay ku soo saar aan gaaro gargaar weyn baan ku gargaarayaa buu yiri عرفة يا نبي يا نبي شيل الله يا نبي شيل الله يا نبي أنت خير النبي يا نبي من رأى مرة غير حسرة عطفة عطفة يا نبي يا نبي شيل الله يا نبي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه مركا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مركز كبعدي وحيجي أيها قاي مدة أذوق الرجل متقان هذه المحدثين تاه وقلا وقدر كل شيء مالك كده وحنا صلوات ربي وسلامه عليه أنا ومال السعدة أيان وحى مغلبو يري الصوت أيان مغلبو يري صوت كي مركي أنا مغلي قربان فيري عرك حاجة صوت كمغلاه فيري مركز وحيري ملقي أول ساعة سوق جارسية أيام جد هالكان مال عرك أسافر ديا هذا ملاك مال أسافر سكر